shalay subaxdii markay ahayd baa meesha khaatimo la dhahayo baa waxaa ku soo dhacday madfac oo laakiinse ayaga way garan waayeen waxay u maleeyeen meeshaas inay diyaarad ku soo dhacdo waa kuwana dhegeysta ayaga wixii sharaxay meesha baashaas ku dhacday waa tegi waa gartay dowladda Kalcad bay waxay u jirtaa 8 kiiloomitir haye xagga waqooyiga ka xigta waxay ka xigtaa xagga galbeedka waa gartay waa meel baxaad oo jilicsan oo bus ah dhulka buska loo yaqaan shayga meesha ku soo dhacay horta wuu gubtay waxa kana ay u soo dhaceen iyo sida ay u yaaleen waxaad moodaa waxa kan horta diyaarad inuu yahay marka halka saalax maqleyseen nimanka halkaas ku yimaadeen waxa la isku raacay inay waxaas oo halkaas ugu jidaan inay tahay drones oo sawir qaadays leegtahay ama la yiraahdo waxani waa diyaarad ma aha nooc la oran karo dad baa fuuli kara way ka yartahay marka ma waxaad u qiyaasaysaan diyaaradaha iyagu iswada ee loo yaqaan droneska baad isleediin noocaas aan malaynaya inay tahay waayo haddii dad la socdo wuxuun baa la arki lahaa dadku ma wada dhammaadeen lafihiisa iyo soo dhawshuun baa la heli lahaa asaar qof waa la heli lahaa marka yaraanteeda iyo inaan wax dadoo dhaawaca ama dhimashaahi meeshii aanay ka muuqan marka loo eego markaanu maskaxa badan isu geyna waxaan waa bahalaha yaryada loo yaqaano droneska ee wax sawira laakiin drones maaha marka barnaamijkan baa maanta inta wax ku sharaxayna waxaas meeshii yaalay wuxuu yahay iyo dadka sameeyey iyo meeshii ka timid marka barnaamijkan waa barnaamij muhiim ah public service ah weeye oo la rabo dadka inay soo gudbisaan marka waxaan dhahayaa soo dhawaada gambara qaata shalay markay ahayd baa khaatimo ku soo dhacday bahashan yaa sanduuq jidaan kalarka buluugan soo jidaan si fiican u fiirsada xasuusta kan waa dhoolan tusaya baalal yar uu leeyahay soo jidaan marka baalashan uu leeyahay tanana xasuusta yaa marka bahashaas waxa weeye dadkii waa garan waayeen madfac weeye missile way anti-ship missile balda laakiin dadka halkaas jooga waxay isku raaceen inay tahay bahashan drone sawir qaadis marka bahashan waxa weeye missile maaha drones maaha waa anti-ship missile way ya bahashan waxa soo alifay Iiraaniyiinta soo alifay soo jidaan marka waa kuwana bahashii ya oo dowladda Iiraan baa soo aliftay waa kana ayuu dadkii loo soo bandhigayo madaxweynaha Iiraan waa gees taagan soo jidaan Ahmadinejad soo jidaan marka bahashan bay u badan tahay inuu ku soo dhacday khaatimo marka bahashan anti-ship missile way baalashi ay sheegayeen nimanka way leedahay dhigista waa kana ayagoo sharaxay waa kana sida ay u yaaleen waxaad moodaa waxa kan horta diyaarad inuu yahay waa gartay waayo waxaad ku garanaysaa baalihii hal baal baa ka nool baalkaasuna wuu yar yahay waa baal aad u yar lambar baa ku qoran haddana sama sawirka ugu jeedeen color buluuga noole marka bahashan waxa weeye waa anti-ship missile way marka waa kana soo jeedaan marka bahashaas way ya marka noocan weeye nooca Soomaaliya ku soo dhacday marka qadar baa la soo jeedin Iiraan baa soo sameeyeen oo cilmi baaris ku sameeyeen marka bahashan waxa weeye diyaaradahan waa laga soo ridaa inta diyaarad la soo saar baa laga soo ridaa si aan u jidaan maraakiib dagaalkan waa laga soo ridaa baabuurna waa laga soo ridaa oo madfaca oo soo gaaray khaatimo la marka waxay noqon kartaa labada midkood bay noqon kartaa nooca la dhaho nuur bay noqon kartaa ama nooca la dhaho qudus bay noqon kartaa soo jidaan baalashiina way leedahay buluugi kalarka buluugna uu leeyahay soo jid iyo musawirka u jeednayna gadaalna baalash yaryarada gadaal ku lahaydna waa taas ah marka bahashan drones musawir qaadaysa ma waa missile way marka bahashan waxay u badan tahay 100% inay tahay mid ka soo luntay Xuutiyiinta marka Xuutiyiinta maamahan waxay weerareen diyaaradaha maraakiib maraya badacas marka waxay u badan tahay in markab uu soo tuuray oo markabkii la waayay oo marka xaweeye oo toos bis u soo baxday oo marka saas bay ku soo gaartay Soomaaliya نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليات عسكرية ضد السفن الحربية المعادية في البحر الأحمر منها استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين وذلك بعدد من الطائرات المسيرة
bahashan oo madficiya u jideen oo ku dhacay Khaatumo waxa weeye waxa soo alifay oo cilmi baaris ku sameeyeen dawladda Iran. marka dawladda Iran waxa weeye cilmigii iyo technology-gii bay soo alifeen laakiinse cilmigii bay u sii dhoofiyeen wadamo kale oo heshiiska yihiin sida Suuriya oo kale sida Yemen oo kale. marka wadamadaasna cilmigii bay qaateen ayagana way samaystaan. marka si ay inta ku jidaan Yementa oo lagu sameeyo soo jidaan Xuutiyiinta madaaficdan bay ku shaqo galaan oo ayagaaba samaystaan wadankooda. marka cilmigii Iran baa soo aliftay laakiinse gacantii iyo farsamadii ayaga ku samaysay soo jidaan. marka kan Soomaaliya soo gaaray wuxuu badan yahay 100% inuu yahay kan noocan badda ee ugu talagaleen. marka Yementa waxa weeye hubka ku dagaalantamaan oo iskaga celinay waxa ka wadna Xuutiyiinta hubka ay ku dagaalantamaan oo iskaga celinayeen Imaaraadka iyo Yementa Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaga samaystaan soo jidaan. marka waxay sameeyaan kuwana drone yaal way sameeyaan nooca masawiro qaado way sameeyaan nooca qarxa way sameeyaan soo jidaan. waxay sameeyaan kuwana madaaficdii way sameeyaan nooca badda loogu talagalay waa kan baa Soomaaliya soo gaaray noocan soo jidaan. marka maalin hore dawladdu bay samaysteen Xuutiyiinta marka haweeye madaaficda ay sameeyaan baa dadka la tusay. marka madfici oo Soomaaliya soo gaaray waa kana ayadoo oo dawladdu ku jirto oo dadkii la tusay soo jidaan. bahashan oo Khaatumo ku soo dhacday shalay wuxuu badan tahay in oo loo waday markab oo Xuutiyiinta u wadeen markab laakiin markabkaas waa la waayay oo marka way soo gudubtay oo saas bay ku soo gaartay Soomaaliya. marka bahashaas drones ma dadka Khaatumo jooga nimanka Khaatumo jooga waxay isku raaceen bahashaas inay tahay drones laakiin drones maaha. marka bahashan waxa weeye waa madaaficda oo sawaariikhda loogu talagalay in badda wixii badda maray lagu weeraro. marka soo jeedid dawladdu bay maalin hore samaysanayeen waa taas ayadoo dadkii loo soo bandhigayo waa tana oo ayagu sharxay waxay tahay soo jeedaan al-saaruukh al-bahri soo jeedaan. marka tan waxa weeye ugu talagaleen wixii badda maray in lagu dhufto marka nooca oo Soomaaliya soo gaaray wuxuu badan tahay inuu kan yahay al-mandab nooca ay dhahaan soo jeedaan. salki uu leeyahay soo jeedaan oo musawirkii ugu jideen baalashii ninka sheegayna waa kuwana weelada soo jeedaan. haddana waa yarta wax yar way soo jeedaan markii qof loo barbar dhigo wax weyn ma soo jeed. marka baashan waxay buuyibi kartaa 30 ilaa 220 kilomitir bay socon kartaa. marka waxa weeye Soomaaliya waa soo gaari kartaa si fudud bay soo gaari kartaa. marka Yementa ayaga Xuutiyiinta nimanka la dhaho hubka ku dagaalantamaan badan ayaga sameeysta. marka waxa weeye hub badan bay haystaan oo iskaga celiyeen Yementa kale oo iskaga celiyeen Imaaraadka iyo Sacuudiga. marka waa kuwana hubkay samaysteen oo dawladdu ayagoo sameynaya oo dadkii loo soo bandhigay soo jidaan. marka dawladdu baa la sameynaya oo dadkii la tusaya soo jidaan soo u shaqeeyana inta la soo tusaya. marka waxaas oo dhan ayaga samaysteen waxaan wax samaysan waa Soomaaliye oo jaahilnimo islaam fadhida. marka bahashan waxa weeye nimankan dadaal badan way sameeyeen laakiinse waxa weeye bahashan waa halis bay Soomaalidu. marka Soomaali waxa weeye Imaaraadka baa la keensaday oo Imaaraadka maanta 3 xeero bay ku leedahay. marka haddii ay maanta Xuutiyiinta ay soo weeraraan Soomaaliya taas way awoodaan. marka taas waxa weeye waa arrin in lagu talagala weeye sababtoo balaayada soo dhaweysatid balaaya u yarat marka maanta Soomaaliya Imaaraadka waxa weeye 3 xeero bay ku leedahay. marka taas waxa weeye waa arrin ay mas'uul ka yihiin Xasan Sheekh iyo Muuse Bixi iyo Siciidani. marka waxa weeye nimankaas hunguriga qabaan dartooda baa dad badan waxa weeye khasaaro soo gaari doonta. marka arrintan waa arrin lagu talagalay weeye. marka normal ahaan hadda Xuutiyiinta wali dagaal ma soo qaadin laakiin hadday dagaal soo qaadi lahaayeen madfuucooda iskaga khasaariyeen meel cilaa oo Khaatumo iskaga taala. marka haddii wax ku ridayaan wax ku rilahaayeen xerooyinka oo ay Imaaraadka ku leeyihiin Soomaaliya bay ku tuur lahayn ama wax ku tuur lahayn madaxtooyada oo ay fadhiyaan odayaashan oo xaran cunida shaqada ka dhigtay. marka waxa weeye boqolaal meel oo muhiim ah oo ay ku ridi karaan bay wada ku leedahay. marka bahashan waxay badan tahay
inay tahay mid ka soo lunto meesha cidla iskaga dhacda marka xuutiyiinta markay ay weerar qaadayaan afhayeenkoodaba soo qayliya ya marka nin waxay haystaan oo Yaxya Saric la dhaho marka waxa weeye markii weerar qaadayaan ka hor uu TV soo istaaga qaylo buu dhuftaa ya waa kana fiirsada اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض حتى هذه اللحظة لأبشع أنواع المجازر من قبل الكيان الصهيوني marka waxa la yaab leh waxa weeye madfici ku soo dhacay Khaatumo waxa weeye nimankii oo halkaas joogeen bahal waxaysan cilmi u lahayn inta furfurteen bay guryahooda geysteen ya waa arin aad halis ah way dhigiis waa kuwan ayaga sheegay waxyaabihii soo haray sidaad u gasheen koodayaal ahaan meel ma isugu geyseen meel ma sugeynay wayna yaalin waana la ilaalinayaa niman baa loo qaybinay ilaaliya marka bahashan waxa weeye waxa ugu horeysa oo laga rabo dadka inay sameeyaan waxa weeye inaysan taaban ama dhawaan sababtoo ah waxyaalaha qarxa waxa weeye cilmi bay u baahanta dadka ku shaqo leh arintan kuwana iskuulooyin bay u tagaan hadda ka soo qaad dowladda Mareykanka kale ciidanka specialist ku ah rasaasta qarxada iyo bambooyinka qarxa ilaa 40 usbuuc oo training ah baa soo siiya oo special ahaan loo soo siiya soo jidaan ya haddana markii shaqada loo dirayo oo haddii noqoto in bambo ay ka qaadaan jidka haddii noqoto in rasaas oo halis ah ay ka qaadaan meelo marka waxa la soo siiya qalabkan baa la soo siiya soo jidaan waxa la soo siiya koofiyadan waxa la soo siiya jaakadan ya iyo bahashan biraha lagu raadiyo marka qalabkiina waa haystaan cilmigiina haystaan haddana waxa kale isticmaalaan waxa weeye waa robotkan baa loo tagaya marka wixii ay ka baqaan waxa weeye meesheeda lagu qarxiyaa ama tartiib baa lagu furfuraa ayadoo la isticmaalaya bahalkaas marka waxa ugu muhiimsan oo la rabo maanta dadka inay inta ka bartaan waxa weeye hadday arkaan madfac oo ka soo luma qolo ama mid meel iska yaala loogu yimaado waxa ugu muhiimsan waxa weeye in la taaban haddii la taabto oo la furfurto ama guryaha loo qaato daaway halkaas khasaaro weyn baa ka iman karta daawadayaal barnaamijka halkaas ku ka markaa la dhayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo salaati dambe